madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxaa lagu magacaabay wasiiro cusub iyo kuwa isku shaandhayn lagu sameeyay oo la kala bedelay xilalkooda. Gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa loo magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo dhawaan laga qaaday xilka gudoominimo ee gobolka Shabeellada Hoose. warqadda magacaabista ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay Ibraahim Bandhawow. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 12 Diseembar 2020 ujeedo magacaabis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber 44 kuna saabsan magacaabis golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 12 Diseembar wuxuu madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen u magacaabay xubnahan cusub golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Ibraahim Aadan Cali Najax wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya علي محمد علي وزير وزارة دجاجها إيجادية كبدة دولة جولات كوفر قلب الصومالية عمر أحمد آدم وزير وزارة دستور كدولة جولات كوفر قلب الصومالية هيك وحود خنقل نخن دونا ماركو وصيح أحمد أحمدها دولة جولات كوفر قلب الصومالية مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقلن ونصيحي وبالله توفيق. عبد الله محمود عبد العفاني تلفزيون كعالمي اريال تي في بيدبو.